Imin wanaagsan daawadayaal xilli kastoo ay idiin tahay soo dhawaada markan waxaan idiin heynaa muuqaal cusub oo ka duwan muuqaaladii hore. Najma Nashaad oo afka furatay kadib markii ay aragtay ninkii ay horay u kala tageen oo samaystay xaas cusub. Sababta ay gabadhan afka u furatay maxay tahay? Intaas iyo in ka badan ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal, balse marka hore waxaan iiga codsanaynaa in muuqaalkan aad follow dhahdaan siina share gareysaan idinkoo leeg dhahaya si muuqaalku u gaaro saaxiibo badan. Sidoo kale haddii aad nagala socoto dhinaceena YouTube, waxaan kugu xushmeynaynaa in janaalka subscribe aad dhahato, gambaleelkana aad furato si ay kugu soo dhacaan muuqaaladan iyaguna halkaasi ku baahino. Waa hagaag, saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada waxaa si weyn u qabsaday warka la xiriira ninkii hore ay u kala tageen fanaanada Najma Nashaad ee lagu magacaabo Cawaale oo la haasaabaya naaga kale, kaasi oo shaaciyay inuu kaga reestay xaaskiisii hore. Najma Nashaad ayaa iminka waxay u dhaxdaa ninka caanka ah ee lagu magacaabo Bashiir Hanuuniye, taasi oo dhowaan shaacisay in Bashiir Hanuuniye iyo Iida ay yihiin lamaanaha qarniga. Si kastaba ha ahaatee, gabadhan ayaa xalay markii ay aragtay show ay ka soo wada muuqdeen ninkii hore ay u kala tageen iyo sidoo kale gabar qalanja ah, ayaa waxa ay sheegtay in arrintaasi ay aad ugu xumaatay. Dadka falanqeeya baraha bulshada ayaa siyaabo kala duwan u faaqidayay gabadhan waxyaabaha ku dhacay xilligan, waxa keenay inay dib ay u soo milacsato saaxiibkeedii hore. Dadka ku xeel dheer arrimaha jaceylka waxay leeyihiin gocosho hore lama ilaabo, sidoo kalena lama xaqiri karo kulamadii waaweynaaye El Clasico-da. Hase yeeshee waxaa wax walba ka wanaagsan El Clasico-yinka cusub ee gabadhan iminka ay ciyaareyso iyo sidoo kale kulamada waaweyn ee iminka safato. Waxaase wanaagsanaa laheeday waa sida la qabee in gabadhan ay iska gaabsato. Bashiir Hanuuniye iyo Iida markii baraha bulshada ay u shidneeday, Cawaale wuu ka gaabsaday sidii dadku badi ay wada qabaan. Hase yeeshee warkan ayaa waxaana la ogeyn in uu yahay mid la huba iyo in kale. Marka loo eego wararka baraha bulshada dhex wareegaya ee laga sheegaya gabadhan lagu magacaabo Najma Nashaad, hase yeeshee ila ku dhadhow ayaa waxa ay sheegayaan in warkaasi uu yahay mid sax ah, walow dadku qaar ay aaminsan yihiin in warka Najma Nashaad laga baahinayo inuu yahay mid been abuur ah ama mid khiyaaliya. Hase yeeshee annaga ma xaqiijin karno in Najma Nashaad ay afka u furatay saaxiibkeedii hore in haasaabo cusub oo samaysto. Hase yeeshee waa la yaabee maxay macnaha ay ku dhisan tahay in haasaabo cusub la samaysto maadaama kulamadii waaweynaa la isku fahmi waayey, taasi oo qasabtay in lagu kala tago goobta, qof kasta ahina dantiisa uu raacday. Haddaba daawade, waad ku maasantihiin dhammaantiin daawashada muuqaalkan ee noo sheer gareeya.